السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا soomaalida meel walba adduunka ka joogaan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan subaxnimo wanaagsan aan dhahno salaad subax ayaa wax yar ka harsan walaalayaal qolkaygaan ku jiraa waa iska wardinaya caawa habeen jimco ah waaye waa habeen aad iyo aad fadli dheeraad ay leedahay waaye habeen oo ma aragtay in nabiga lagu saliyo in badan ayaa weeyaan walaalayaal saliga nabiga ka bacdi waan duceeyay waxaan u duceeyay waalidiintii dhaleen waxaan u duceeyay ummadda Soomaaliyeed waxaan u duceeyay muslimiinta caalamka meel walba ka joogaan intaas ka bacdi walaalayaal ducada Allah naga aqbalo walaalayaal runtii xaaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto aan rabaa inaan wax yar aan taabto dad badan ayaa iga aftahansan dad badan ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya si kasta u qaadaa dhigeen si kastay ma aragtay u tafatireen si kasto ayay uga hadleen ani marka waxaan rabaa buug iyo qalin wax aan ku soo diyaarsaday malahan laakiin markaan dhageystay dadka siyaasiyiinta aqoon-yahanada culamaa u diinka mujtamaca noocyadiisa kala duwan markaan dhageystay dhammaantooda runtii dad waxaa jiro halyeeyo ah aqoon-yahano ah fiican ku hadlay hadallo oo ma aragtay shacabka iyo waddanka badan u ah ku hadlay bogaadiyay arrimaha Soomaaliya ka socday dhaliilay arrimaha Soomaaliya ka socdo waxyaalo badan dad oo wanaagsan hadallo wanaagsan waxyaalo wanaagsan laga wada hadlay waa jiraan aniga marka run ahaantii anigana haddii aan ka shakhsi ahaan u hadlo ka Soomaali ahaan aan u hadlo ra'yigeygana aan dhiibto waxa weeyaan mujtamaca waxaan jeclaystay inaan la wadaago laakiin waxaa bishardi iga ballan qaadin qofki videogan cajaladan soo gaarta inuu sii gudbiyo intuu dhageysta kaliya ka aamusinan jeclaystay oo qofkaasi qofka kale sii gaarsiiyo ilaa ay cajaladani ka gaarto inta badan ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ku nool yihiin inay wada gaari karto aan idinka codsanayaa walaalahaygiyo YouTube barmi ihi nin oo caan ah ma ihi laakiin waxaan jeclaystay aan rabaa in ra'yigii aniga aan meeshan soo gelin doono in ummadda la sii gaarsiin doono waa codsi hala share gareeyo hala like gareeyo ma aragtaa si ummadda ay u gaarto kulama waxaan maqlay aniga waxaan aaladan kuma fiicni kumana ma aragtay khibradna uma leehi laakiin sida igu maqaalada waxaa la dhahay haddii like badan la saaro haddii comment badan laga bixiyo haddii share badan la dhaho waxuu sii gaarayaa dadka markaasi allaylehe oo u baahan inay dhageystaan qofkan wixii uu ra'yi ahaan oo soo gudbiyo marka kaasi intaas waa iga codsi ma rabo YouTuber inaan noqdo ma rabo inaan caan noqdo xataa laakiin waxaan rabaa ra'yigayga inuu ummadda gaari karo mar walba waa iga codsigayga hala tixgeliyo min fadlakum wa ixsaanakum waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob ma garan karo inta ay noqon karto 2 3 4 5 Allahu a'lam waxaan ku hormarayaa dowladda Soomaaliya guud ahaan ku hormara dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay waxaad tihiin dowlad awoodeeda ay yartahay waxaad tihiin dowlad hadda soo korayso waxaad tihiin dowlad daciif jiddan ah idinkoo saas ah waxaan idinka codsanayaa in aysan iskhilaafin dowladdiinan maxaa yeelay waxaad dowlad u tihiin ummadda Soomaaliyeed haddii idinka dhexdiina
heshiin weydaan ama iskhilaaftaan famaa baalunaa annaga Soomaali ka shacab ahaan idinkiya idinku daysanaynaa idinkii annagana waa iskhilaafeynaa mar walba waa iskhilaafeynaa oo wax walba isku khilaafeynaa haddii laakiin idinkii ka dowlad ahaan isku duuban tihiin oo kale annagana isku duubni ayaan rajaynaynaa inaan isku duubmi doono laakiin haddaa idinkii khilaaf dhexdiina mar walba soo imaanayo oo dhexdiina la idinka dhex faa'iidaysanayo annagana runtii sidaas oo kalena loogu faa'iidaysanayaa marka waxaan doonayaa dowladda Soomaaliya guud ahaan waa madaxweynihii oo xilkiisa dhammaaday la leeyahay waa ra'iisul wasaarihii oo xilgaarsiinta ahaa la leeyahay waa guddoomiye baarlamaan kii xilkiisa dhammaaday asigana la leeyahay waqtigii waxaa la joogaa ummadda badbaadin laheedeen ma la joogo mana loo baahna waxaana eegaya Allah ka sokow waxaana eegaya oo na fiirsanaya oo shaashadaha naga fiirsanaysa boqolaal dowlado ayaa shaashadaha naga eeganaya waxay eegayaan madaxdeena waxay eegayaan shacabkeena waxay eegayaan waddankeena Soomaaliya waxay eegayaan yaa waddanka maslaxa u ah waxay eegayaan yaa waddanka ku wada qalalaaso iyo rabsho kulli dhalika wallaahi billaahi tallaahi caalam hormaray ayaa ma aragtay ku noolnahay runtii dowladahaasi na eeganaya maxay naga eeganayaan malayn kartiin wallaahi waxay naga eeganayaan keeni daneestaha oo waddanka raba inuu iibsado kaasay rabaan inay eegtaan maxay ku eeganayaan mataqaanaa waxay leeyihiin adigaa nin fiican adigaa daacad adigaa waxtar u waddanka adigaa waxtar u shacabka saasay dhahayaan ayagoo dan khaas ka leeyihiin ninkaas shakhsiga iyagoo dan ka leeyihiin danta ay ka leeyihiin maxay tahay in waddanka khayraadkiisa ay kaga faa'iidaystaan walaalayaal wax kasta oo waddanka khayraadkiisa inay ka qaataan rabaan walaalayaal saas darteeda waxaan leeyahay siyaasiyiinta Soomaalida ayaan usoo gudbayaa dowladda markaan ka hadlo siyaasiyiinta oo raba inay dantooda shakhsiga markay rabaan inay waddanka kaga faa'iidaystaan shacab badan waxaa jira oo Ilaahay garaad siiyey aqli siiyey fikiraya wax barteen ayaa jira oo dhalinyaro dhalinyaradaasi way idin eegayaan yaa idin taageeraya ma garanaysiin dadka idinkula heebta dadka idinkula qabiilka oo wax magaratada laakiin dadka idinla heebta oo aqoon-yahanada idinma taageeri doonaan wallaahi idinma taageeri doonaan oo billaahi idinma taageeri doonaan qaalis runtii aad iyo aad hurdada ayaa iga seegtay baryahan ma jiifto ma hurdo maxaa yeelay waxaan ahay shacab Soomaali Ilaahay intii uu fahansiiyey 32 jir baan ahay intii Ilaahay aqli ii soo yeelay wallaahi hurdadii baan gabay maxaa yeelay waddankaygii baa lagu tumanaya dad dan yar wata masaalix wata ayaa raba waddanka inay ka macaashaan taasina wax suurtagal ma aha walaalayaal shacab weynow dhalinyaroy videogaygaasi wallaahi billaahi hal kalimo oo faa'iido haddii aad ku aragto walaal macaan qaali isku mid baan ahay waddanka ha xasdin ani xasid laakiin waddankan u hadlayaa waddankan jeclahay
walaal gaarsii walaalkaaga kale si oo u dhagaysto barnaamijkan asiga ah. waa guubaabo walaal macaan. qabiil 32 sano waxba waa noo soo tari waayey, laakiin dad yar ayaa qabiilkaasi anfacay ka faa'iidaystay. laakiin shacabka intiisa badan wallaahi bilaahi kama uusan faa'iidaysanin. laakiin maxaa looga faa'iidaystay? maxaase looga faa'iiday qabiilkaasi? dad yar oo siyaasiyiin ah wixii dhaleen faracooda yar, yacni waa kaasa, waa lii fahmi karaa. walaalayaal sidaasi dannoo ma aha marnaba. videogan waxaan jeclahay ilaa 1 saac 2 saac 3 saac anaan hadlo. wallaahi hadalka ma daali karo, runtana waan sheegi karaa, wax walbana waan ka hadli karaa. laakiin waqtigii dadka inta badan sabar ay ku dhageystaan hadalkayga ma haystaan. sidaas darteeda walaal macaan, intaas yar videogaasi aan soo duubay keliya ah ii gudbisii, kheyr allah ha ku siiyo. axsaana lagaaga hayaa haddaa sheer dhahdid, axsaana lagaaga hayaa haddaa like i dhahdid. yaa weliba waxaan kugu sii rajaynayaa inuu gacantii adiga aa sheer ku dhahday iyo like aa ku dhahday inuu ilaahay kuu barwaaqeeyo walaal. aan kugu sii ducaynaa weliba. iisii barnaamijka sheer gareey, maxaa yeelay dadkaasi siyaasiyiinta xataa hal siyaasi hadduu dhagaysto oo gaaro videogaygaasi, maadaama nin youtuber weyn aanan ahayn, intaas halkaas siyaasiyaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato. halkaas shacabka soomaaliga gaaray ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato. walaal gaarsii allah yahdiik. wax xun ma sheegin, qafarta kuma fiiqin, laakiin waxaan rabaa waddanka inaan isku wada duubmano haddiin Soomaali nahay. caalamaa na fiirsanaya yaakh, aqliga ha shaqeeyo. caalamaa na fiirsanaya. haddii ilaahay ka cabsan weyne, bal caalamka aan ka xishoono. caalamka aan ka xishoono. maxaan uga xishoonaynaa? waddankeena meesha ugu dambeeyuu joogaa. waddankeena musuq maasuq haddii la dhaho meesha ugu liito ayuu joogaa. marka ceebay nagu tahay. adiga yaa tahay markii lagu dhaho oo dhahdid Soomaaliyaan ahay. walaal macaan, yacni maxaa lagu leeyahay? maxaa lagu dhihi karaa? Soomaali maa tahay? hay waddankiisa see waayaa lagu dhahaa. Soomaali waddankiisa ka warrama. Soomaali intee waaya waddankiisa? maxaa la ogaanaa marka? inaad tahay qof rabshoole ah, inaad tahay qof oo ma aragtay fufudud, inaa aqligaaga shaqaynaynin, inaa waddankaaga burburinaysid aa lagu arkaa. marka waxaan jeclahay inaa Soomaali markaan annaga aan nahay inaa caalamka la tartamnaa rabnaa. caalamka inaan la tartamnaa rabnaa walaalayaal. marka dad badanaa jiifa, dad badanaa hurda iska raaxaystaan, laakiin caawa aniga ma hurdi karo. ilaa haweenadan dhan lasoo dhaafo ma hurdi karin. maxaa yeelay waxaa iskhilaafsan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare, waxaa isku dhacsan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne, waxaa isdagaalsan wasiir iyo maxaa la dhahaa ra'iisul wasaarihiisa. kullu daalik waxna anfici karo ma aha walaalayaal. ha la wada fariisto, ha la wada hadlo. waddankaasi dagaal yuusan ka dhicin. in badanaan ku celceliyaa, dagaal waa soo aragnay. wiilalaa noogu dhinteen, hooyooyinaa noogu dhinteen, gabdhaa noogu dhinteen. waddanka waa soo burburay. burbur wuxuu yahay waan aragnay. marka siyaasiyiinteenaasi waxaan ula dardaarmi lahay inay isku duubmaan. mucaarad ha yeeshtaan haddii la rabo. dowlad aan mucaarad lahayn dowlad ma noqoto. dowladda mucaaradka wuxuu iftiimiyaa, wuxuu wax tusiyaa shacabka, ayuu wax tusiyaa, ayuu wax u iftiimiyaa, wixii wanaag ah u sheegaa, wixii qalad ah u sheegaa dowladda ka dhex socdo. marka mucaaradka wax fiican waaye, laakiin mucaaradow dagaal ha samaynin. mucaaradow dagaal ha kicinin. mucaaradow ha ka talinin ummadaani shacabkaani saa adiga ma aragtay dhibaato ha ku abuurin. marka insha Allah taala videogan 14 daqiiqo 15 daqiiqo u socda. warka inaan badiyo ma rabo. videogan hala sii share gareeyo. waligay ma codsanin hala share gareeyo ma dhihin, laakiin hala share gareeyo. waxaa laga yaabaa hal kelimadoodu afkayga ka soo baxday
in waddankaasi uu ku badbaado walaalayaal. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.